magacaygu waa Paul Marino ama naanees ahaan geedi raagi rooble ninkii igu bixiyay oo magaciisu waa Islaaw Xasan Guuleed isoo wardiye ah isbitaalka oo nin fiican buu ahaa Allah ugu naxariisto oo kooxaheena isbitaalka degmada Buulbarti aan ka shaqayn jirnay waqtigii 86 iyo 89 reer Buulbarti oo dhab ah oo run ah anigana nin Mareykan aan ahay oo 3 sano bis baan joogay sidii maxmaa Soomaali oo ay yiraahdeen baqal fardo la daaqaya fars bay ismooda markaan arko dad badan oo dadaalayaan in dib u dhiska isbitaalka Buulbarti ay sameeyaan aad baan u farasanahay runtii waxaan xusuustay niman xamaali ah oo shaqaynayay xamar ay way heesaan markay shaqaynayaan waxay yiraahdeen quraancho ururte bula waajita quraancho ururte bula waajita saas bay yiraahdeen oo waana arki jiray quraancho bula jiidaya indhahayga waa ka arki waana run waa sida far kaliya foolma dhaqdo marka waqtiga gaabnaa oo 3 sano oo aan reer Buulay baan ahaa dadka aad bay noo soo dhaweyn jireen runtii hal mar aan geel baan abay mar laba ma abay waa ogahay idinku hal qabtin caafimaad inay tahay laakiin anigu shuban bis waa dib marka in kasto Buulbarti waa magaalo yar waa dadka oo reer Buulbarti ah waa dad wanaagsan oo caan ah dadka qaar waxay u mareeyaan inaan ahay barwaani marka marmar maxmaa barwaani waan tuuray mid oo la dhaho sidaad u baranaysa lug marow laazim laamigu ku qaadaya marka Ahmed Ali Hayli Allah u naxariisto soo reer Buulbarti ah isaga macallin uu noo ahaa hogaamiye iyo walaalkeen buu ahaan jiray oo wax badan buu noo sharaxay ku saabsan heesaha iyo sheekooyin iyo mahmaayo iyo dhaqanka Soomaali oo mar labadeena waa isla soconay Buulbarti aanin baa noo soo yeeray wuxuu yiri war Ahmedow war ninkan Mareykanka hadduu af Soomaali hadduu yaqaan hadalkan ha fasiro markaas waxaan isiri waa ogahay wuxuu dhex doona agta wax ka day waa sahal waay markaas wuxuu yiri mataqaan wuxuu yiri okay wargeediyo dhageyso kan ka fasir wax aanan oran waan iri oran maayo wax aan iri ma oran maayo igu yeera ninkii yiri waa tiri wax aanan oran aan iri u yiri ha yiraahdo waa wareeray oo marka Ahmed waxa uu dhahay lahaa mahmaadi aabo kan yar iga eliyo kan weyn igu soo day waa sida tan Soomaalideyni haddii ay siinahatay Soomaalideyni haddii ay siinahatay waa subax wanaagsane calankana salaama nin lagu sahdo ha seexan hilbaasita ha seexan nin lagu sahdo ha seexan hilbaasita ha seexan ha seexan soo jeedo si weyn u feejigno marka heeskan inoo baray marka waa sidii heesta Soomaali kale oo mar hore markaad Soomaali joogay Ahmed uu noo baray waa geed harkii waa labada gelin godorkii waa dada kala guurey balgarooso hadalkaas sida goodir xeregalay u goohay golaheena sharafta leh u goohay
ma ku gaaray hadal go'aasho guul laguma ware gogosane gogosane hoga'anta ho marka hadalkayga waan sii gabagabeynayaa waxaa la dhahaa hadal badan haan ma buushee nabad geliyo